munaasabadan ballaaran ee maanta ka dhacday hotel Makka ee magaalada Kismaayo ayna ka soo qayb galeen xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada iyo baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ururada bulshada rayidka saxafiyiin iyo marti sharaf kale ayaa ahayd mid ay soo abaabuleen ururka saxafiyiinta madaxa bannaan ee Chicha laguna maamuusay maalinta caalamiga ah ee joojinta tacadiyada ka dhanka saxafiyiinta ayaa waxa ugu horeyn madasha ka hadlay Xasan Maxamed Nuur oo ku hadlayay afka wariyaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo Aadan Maxamed Salaad oo ku hadlayay afka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj waxaana hadaladooda kamid ahaa 2 November waa maalin loo asteeyay in lagu xusuusto dhammaan wariyaasha iyo shaqaalaha warbaahineed ee la dilay ayagoo ku gudu jira howlahooda shaqo isla markaana lagu xusuusiyo dawladaha inay baaritaan ku sameeyaan dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha si ay u helaan cadaalad fadhi la sugu yimid qaramada midoobay sugu yimid kulankii 68aad oo lambarkiisu ahaa 68/168 ayaa loogu aqoonsaday 2 November inay tahay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tacadiyada loo geysto wariyaasha intii Jubbaland ay deegaanada ka shaqeynayay aanu wax dhibaato ama dil aanu ka dhicin goboladan waxaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee amniga iyo wariyaashu ay isaga xil saareen runtii madax kala duwan oo aan halkan shahaado sharaf ku siin doono ayaana kaalmaha hore kaga jira dadka maanta keenay munaasabadan quruxda badan in wariyaasha si xor ah ay u dhigtaan waxaana sidoo kale munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf iyo madaxweyne ku-xigeenka hore ee Jubbaland ahna xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag madaxda faraha badan ee isugu jirta federaalka iyo Jubbaland nin walba waxaan ku salaamayaa darajadiisa markii waxa weeye in aan hadda tirino waqti baa naga lumaya madax badan baa fadhida dhamaantiin qayb kasta oo bulshada ka mid ah mas'uuliyiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay saakan ka soo qayb galay xafladda u soo abaabusheen waxaan rajaynaynaa ka hortagga tacadiyaasha wariyaasha annagu hadda sida idinku sheegteen annaga xaggeeyaga waa ka badbaaday tacadi xaggeeyaga kama jiro xagga kale oo Soomaaliya iyo adduunkana waxaan codsanaynaa inuu dhamaado tacadiga loo geysto wariyaasha 2 November waxaa loo asteeyay maalinta xuquuqda wariyaasha ama saxaafadda waxaan hambalyo u diray halkan bahda saxaafadda ka howlgasha Jubbaland ama loo yaqaan Chicha saas la eg waxaan hambalyo u dirayaa bahda saxaafadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan na hambalyo u dirayaa waxaan hambalyo u dirayaa bahda saxaafadda adduunka adinku marka wada shaqeynta saxaafadda iyo dawladda wada shaqeynta saxaafadda iyo amniga baan kula daarbay haddii la yiraahdo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii Jubbaland saxaafadeeda aad uga soo shaqeeyay macnaha oo soo garab gali jiray maxaa yeelay Chicha waxaa la aasaasaa u malaynayaa ereygan Chicha la yiraahdo ragga bixiyaan ku jiray 2004 waxaan ku dhisnay meesha hotel asaasi waan Chicha ku dhisnay maanta waxay marayaan 2004 12 sano laga soo joogo malaynayaa markiis dambe soo siriixinaa markaas ayada waa yareen ka bacdi haddana dowlad goboleedka baan ahayn haddoon sano tireedin oo maxad malaysaa markaad guulaynaa aad iyo aad baan u difaaci doonaa saxaafadda meel kastoo joogno haddaan Jubbaland ahayn waa difaaci jirnay haddaan dowladda federaalka ku biirnayna waa difaaci doonaa haddii la yiraahdo ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa kulanka ka hadlay halkaas oo ururka saxafiyiinta ee Chicha ay shahaado sharaf ku guddoonsiiyeen mas'uuliyiin ay u arkeen in ay wariyaashaas garab taageen intii ay ku jireen shaqadan adag ee saxafinimada waxaan hambalyo u dirayaa anoo ku hadlay magaca dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha ka soo bilaabatay iyo madaxweyne ku-xigeenada wasiirada xildhibaanada dhammaan mas'uuliyiinta ururada ciidamada ammaanka iyo dhammaan shacabka Jubbaland waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa dhammaan saxafiyiinta Jubbaland meel kasta ay joogaan hambalyo leena hambalyo meel kasta ay joogaan hambalyo leena ku xoogaa yar wax qaba jira oo meesha imaanna waxaa leenahay dad gaar la mootay ku soo biira oo midnimada ilaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar TV caalamiga Star magaalada Kismaayo.